waa tahay soo dhawaada maanta waxaynu gelaynaa masaajidka caanka ah ee Xaaji Soofiya oo aynu idin soo warin doono taariikhdiisa iyo macluumaadka la xiriira masaajidkan iyo marxaladii kala duwan ee uu soo maray. waxaanu sidoo kale isku dayi doonaa inaan isla maanta booqano masjidka kale ee caanka ah ee la yiraahdo Sultan Ahmed ama Blue Masjid oo isaguna geeskaas ka muuqda. wax yar ayay isu jiraan oo aan 40 talaabo ka badnayn. kumanaan dad ah ayaa doonaya masaajidka inay booqdaan oo safaf dhaadheer ku jira. haddaadan helin cid ku kaxaysa oo masaajidka ku gelisa oo lacag ka qaadata wayba adag tahay si aad gudaha ku gashid haddaad damacdeen inaad saf caadi ah gashid. guud ahaan dadka safafkan taagtaagni ma aha muslimiin kaliya ee waa dad diin kasta haysta oo adduunka meelo kala duwan ka yimi kuwa doonaya inay darsaan taariikhaha kala duwan ee dhismahan cajiibka ah ee Xaaji Soofiya caanka ku yahay. intii u dhaxaysay sanadihii 1532 ilaa 1537 ee taariikhda miilaadiga ayaa la dhisay masaajidkan caanka ah ee Xaaji Soofiya ee hore loo oran jiray Hagia Sophia oo la macno ah xigmadda quduuska ah. boqortooyadii Roomaankii bari ayaa yagleelay dhismahan oo ay ka dhigeen kaniisadoodii ugu weyneyd ee magaalada Istanbul oo waagaas la oran jiray Constantinople. in ku dhow 1500 oo sano ayuu ahaa kaniisad iyo meel ka mid ah xarun cibaadeedyada ugu weyn Kirishtanka ilaa laga soo gaaray sanadkii 1453 oo boqortooyadii Cismaaniyiintu masaajid u bedeleen kadib qabsashadoodii Istanbul. mar kale 1935 waagii xukuumaddii Mustafa Kemal Atatürk ayaa madxaf loo bedelay masaajidkan waqti dheer oo uu madxaf ahaa kadib. sanadihii 2015 ilaa 2019 ayaa dhismahani noqday goob dalxiiseedyada dadka ugu badani tagaan dalkan Turkiga. goortaas oo dawladdu go'aamisay in mar kale masaajid loo bedelo sanadkii 2020 ayuuna hirgalay go'aanka ahaa in masaajid laga dhigo. waagii Kirishtanka waxay derbiyada masaajidka ku dhejiyeen magacyada Nabi Ciise calayhi salaam, Maryama iyo Jibriil. ilaa maanta ayaad sawirada gacan ku samayska ah iyo magacyadooda ka arki kartaa derbiyada. ha yeeshee inta la daboolay ayaa lagu hoos qoray magaca Alle, Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam iyo qayb ahaan magacyadii saxaabada. Krishna, they made a mosaic of Isa. Isa is here. They're covered. This is now underneath this. Isa is underneath this Quran. Okay? Can you read Arabic? Allah. Muhammad, Khulafa Rashidin, Abu Bakr, Umar, Osman, and Ali, two are Hassan and Hussein. dalxiisayaashu caqiido walba oo ay haystaan waxa loo ogol yahay inay gudaha masaajidka galaan, waayo masjidkani waa kan kaliya aad gudihiisa ku arki karto astaamaha Islaamka iyo Kirishtanka labadaba. hal shuruud oo kaliya ayaa hortaal dalxiisayaasha aan muslimka ahayn ee gelaya masaajidan, taas oo ah in dumarku madaxooda daboolaan, ragguna xirtaan surweelo jilibka ka hooseeya. dharka oo haddii aysan horay u qabin masjidka laftiisa laga siinayo, qaar ay soo celiyaan markay booqashadooda dhamaystaan. ugu dambeyn waan ka soo baxnay gudaha masjidkan taariikhiga ah ee Xaaji Soofiya oo ka mid ah masaajidda adduunkeena ugu taariikhda weyn dhismo ahaan iyo taariikh ahaanba. sidaad aragteen dhismahan in gudihiisa la galaa waa wax cajiib ah oo qof walba uu ka dhaxli karo taariikh aad iyo aad u gudo ballaaran. waxaanu hadda aadi doonaa masaajidka kale ee kan u jira dhowrka talaabo ee la yiraahdo Sultan Ahmed ama lagu magacaabo si guud ee The Blue Masjid ka oo isagana aynu geli doono taariikhdiisa guudna aynu idin soo warin doono. masaajidani waxa ay ka mid yihiin ilaa 85,000 oo masaajid oo ku yaala guud ahaan wadanka Turkiga. masaajidka kale ee reer galbeedku u bixiyeen The Blue Masjid balse magaciisa rasmiga ah yahay Sultan Ahmed waxa la dhisay intii u dhaxaysay sanadihii 1609 ilaa 1616. waa mid kale oo ka mid ah rug taariikheedyada xasuusta u ah boqortooyadii Cismaaniyiinta ee Turkiga iyo dalal badan oo kaleba boqolaalka sano ka talinaysay. si gaar ah waxa loogu magac daray Sultan Ahmed kii koowaad oo waaga la dhisay boqortooyada isagu hogaaminayay.
halka magaca The Blue Masjid oo galbeedka ka yimidna ku baxay bulukeetiga buluuga ah ee ku weegaaran qayb ahaan dhismaha masaajidka.